shir jiraayad ay ku qabteen gobolka Minnesota waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ayaa waxay uga hadleen heshiiskii ay kala saxiixdeen dawladda Soomaaliya iyo Somaliland sida warbixintan ugu soo diray wariyaheena Caawil Nuur Shil Cusbo. waxa halkan lagu qabtay shir ay si wada jir u soo qaban qaabiyeen odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Awdal kaasoo ujeedadiisu ahayd in lagu cambaareeyo shirkii dhawaan ku dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo Somaliland dalka Turkiga bishii afraad 13keedii 2013 kaasoo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Somaliland madaxweynaheeda Axmed Maxamed Siilaanyo shirkaasoo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid qarannimada Soomaaliya wax u dhimaya waxa ay kala sheegeen in ay haatan loo baahneen in ay dawladdu ku dhaqaaqdo arrin kala qayminaysa beelaha Soomaalida maanta halkan waxaan iskugu nimidnay inaan ka hadalno shirkii dhawaan ka dhacay Ankara dalka Turkiga ee iskugu yimaadeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo Siilaanyo shirkaasna waanu ka soo horjeednaa sidoo u dhacayna in daliil xooga ayaan ka qabnaa marka haddii aan bilaabo hadalka shirka lagu qabtay Ankara wuxuu ku yahay una burinayaa oo meel ka dhacna ku yahay axdigii 1960kii ummadda Soomaaliyeed ay kala dhigteen ee ahaa in labadii la kala oran jiray ee ahaa magacdii gumaysiga ee Soomaaliya iyo Somaliland la oran jiray labadii la tuuray ayuu dib u soo nooleeyay waaga waxa ku qoran sharciga Soomaaliya iyo Somaliland baa isku tagay waxayna abuureen Somali Republic Jamhuuriyadda Soomaaliyeed marka haddii mar dambe loo wada fadhiisto Soomaaliya iyo Somaliland loo fadhiisto waxay ka dhigan tahay axdiga waaga la qaatay ee 1960kii la gaaray in wax kama jiraan u yahay habka loo qabtayna ee dinku baaragtayna sawirada caalamka lagu baahiyay waa laba wasiir oo wax kala saxiixanaya labadoodii madaxweynena ay ka dambeeyaan oo gadaal ka joogan in mas'uuliintii waaweynada ee Turkiguna ay hareer ka joogan arintaasina waxay nala tahay dawladda Turkigu in gafweyn bay halka ka gashay in kastoo aan Turkiga aad ugu mahadnaqayno in abaarihii dalka Soomaaliyeed si ugu soo gurmatay wax iyaduba ayna aqbasheen iyo innaka inagula kacday waxaan u malaynayaa in ka soo kicin laaysi ay tahay arrinkan ka timiday in madaxweynaha Soomaaliyeed iyo xukuumadda oo arrinta dhiirigelisay arrinta marka madaxweynuhu wuxuu ku khaldamay inuu tixgeliyo numberka badan ee waqooyi dega ee unionism ka raba wuxuu suurtageliyay Soomaaliya marka uu ka hadlayo VO-da oo uu leeyahay waxaanu siinaynaa nimanka separatistaha hub iyo lacag inay genocide sameeyaan inay dad xasuuqaan sidii Kalshaale meesha la Meygaagle Awdal bariga sanamtu soo gashay Xudun meelo badan oo Soomaali Sanaag Laascaanood wuxuu u sahlayaa inay genocide sameeyaan dalkii halka ka hadla ayaa tilmaamay in madaxweynuhu uu meel uga dhacay beelaha halka ka soo jeeday isagoo u kala garbinaya beelaha wada dega gobolada waqooyi sida la og yahay Somaliland ayaa waxay ku dhawaaqday 1991 in ay Soomaaliya inteeda kale ka go'ayso 1960kii uu baahayd markii ay midoobeen labada gobol ee Soomaaliya iyo Somaliland shacabka Soomaaliyeed waxaan fari lahaa annagu waxaanu nahay oo u taaganahay unionism ma nabcin walaalahayo waa ehelkayo waa qaraabadayo laakiin Soomaaliya inay kala go'do marna nala ka dhaadhici maayo madaxweynaha waa saboodsannahay laakiin waa marka uu saxan yahay haddii madaxweynuhu shacabka unionismka ka tagay ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa inuu shacabka unionismka garab istaago inuu hadlo inuu positionkiisa cadeeyo baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inay unionismka garab istaagaan separatism kale ka soo horjeestaan nimanka goosanaya inay ka soo horjeestaan annaga oo metelayna qaybo kamida dadka dega gobolada waqooyi ee Soomaaliya sidii ay saaxiibaday sheegeen waxba kuma khilaafsani waa la qabaa arrinka uu ku kacay madaxweynuhuna waa arrin ka fog cadaaladda haddaad xusuusato madaxweyne xisbiga aad ku soo gashay doorashada wuxuu ahaa xisbiga nabadda iyo cadaaladda waxayna u eg tahay heshiisyadan aad galaysid aad la galaysid Siilaanyo mid cadaaladda ka fog nabaddana ka fog waxay ahayd sidii ay saaxiibaday u sheegeen in aad talada weydiisid dadka culimada ah dadka odayaasha ah salaadiinta waxgaradka ka soo jooga dhammaan gobolada waqooyi annaguna haddii aanu nahay qurba joog hadda waxa noo muuqatay hilow iyo yididiilo aanu dalkii u qabnay waxay ahayd markii madaxweyne lagu doortay niyad wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ay kugu soo dhaweeyeen haddana waxa muuqata niyad jab
dadka qurbaha jooga aad bay ku soo dhaweeyeen waliba dadka iyaga caawa halkan taagan markii aad noogu timi magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Mareykanka waxaanu ka ahaa dhamaantay oo ahayn dadkii ku soo dhaweeyay dadkii calamada ku ruxayay dadkii niyad samaanta kugu soo dhaweeyay haddana waxaa naga muuqata niyad jab iyo in aanu ka niyad jabno oo kalsoonidii aanu kugu qabnay dhaawac uu gaaray weyn waxaana kalifaya heshiiska gaarka ah ee dad gaar ah oo ka yimi goboladii annaguba aanu ka nimi aad la galaysid saddexdii qof ee halkaa u hadlayay beelaha ay ka soo kala jeedaan beelahaasoo kale ah awdal sanaag iyo sool ayaa isku raacay in aanay marnaba aqbalayn Soomaaliya oo ah laba dal oo isdhinac degan waxa ay tilmaameen meel kastoo la joogo iyo waqti kastoo la joogaba in ay Soomaaliya mid tahay marnaba aqbalayn kala goynta Soomaaliya Awil Nuur Shire telefishinka caalamiga Somali Channel Minneapolis